السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan isla eegaynaa si aad jawaabta u eegan lahayd lotteriga insha allah waxaan furi doonaa habeen dambe insha allah mareykanka beri duhurka markay u tahay inagana noo tahay 7 barka ilaa 8 fiidnimo insha allah markaasaad u eegan lahayd websiteyada fake iska ilaali websiteka saxda linkigiisana waan idin soo diray electronic device visa programkay ku qoran tahay ama divsha program registered government imtixaan waxa la soo baxaysa chromekaaga iyo chromeka tigeysa mobilkaaga computerad baxdiist halka URL-ka waxa ku qoraysaa divsha program registered government kaad qortid continue waad leedahay ma enter baad leedahay check status continue baa ku sii dhufanaysa marka waad akhrinaysaa halka welcome ku leeyahay information kaas ku siinaya hadarkii hore sanadka hore baa ku jira laakiin halka wax soo geliya insha allah kii kalena uu soo geliya marka xogtii waa page-kanaad gashanaysaa waa confirmation number-kaagii qasnam family iyo path marka waxaan isla eegaynaa qofkan oo kale hadda eegaynaa xogtiisii waqtaa magaca u dambeeya markasta qaadanaysaa magacaaga awoowaha weeye waa maxamed cabdullaahi maxamed baan yiraahdaa marka maxamed ka qaadanaysaa iyo confirmation number-ka 2020 horeeyo waa iska ilaalinaysaa zero-ga iyo isku khaldani oga zero-ga calaamadeed baa soo dhex marsan awduna waa caadi iyo sanadka intaa aad uga taxadiraysaa xarfo iska ka khaldamin waa 16 xaraf oo number iyo hexadecimal isugu jira 15 digit 16 hexadecimal numbers weeye marka waxaad sameynaysaa si taxadir leh ayaa u gashanaysaa insha allah waadna hubin khadka duxuu yahay iska sug subaxa dambe eego waqtiga jam aanu ahayn website-ku eego insha allah hadda xogtiisii baynu gelinaynaa hadda intaan ku soo aragnay halka gashanayna hadda inta badan lagama raago website-ka ka raagin insha allah dad yani muddo iskaga jirta kuu furan APN iska kaa xidho marka hadeer last time family name-ka waa maxamed waxa ugu qoraysana waa confirmation number-ka si sax u qoro si sax marka halka u gashatid confirmation-ka oo gacanta ku qortid soo koobiyeyn caadi gacanta ugu qor copy paste iska ilaali gacanta marka ku qoraysidna si sax u qor small letters ka dhigin all capital letters ka dhig small baa hadda qoray laakiin capital ana ka dhig dhammaan xarfaan wada capital si taxadaraan oo si degan u gasho sanadkii iyo magacii baan gelinayaa magacii waa kaa sanadkay haray sanadkana waa gashanayaa kabacdi inta markaan geliyo hoos baan u degayaa anuu confirmation number-ka iska hubiyey iska saxay warqadaada adoo eegaya baa gashanaysa meesha kabacdi kaana waa iska bedbedeli kartaa aad baa uga taxadiraysaa xogta marka isaga kule warqadu kugu qoran yahay family name-ka ku hadlayaa inta yar statement-ga yar marka koodhkaas gashanaysa waa authentication code marka authentication code-ka markaad gelisid submit baad markaa leedahay marka halkan waxa kaaga soo baxaya laguma dooran sida qofkan has not been selected taasada kuu soo baxdo hubi 2 jeer 3 jeer hubi dad kuu soo baxo wax ka dhiganta laguma dooran insha allah waxaan isla eegi doonaa marka lagu doorto qaabku isu noqon doono ayaynu isla eegayna insha allah inta badan waxaad sameynaysaa xogta si sax ah u gelinaysaa marmar buu ku khaldayaa error waxaa ku soo qorayaa halka iska sax oo si sax fadlan u gasho escape-kaas aad taabanaysaa darabtina ku noqdo halka escape home ku qoran tahay haddaba baahantayna ku laabatid meeshii continue waad leedahay kabacdi qof labaad baynu gelinaynaa hadda
kamid ah dadka sanadka hore magaranaysa helay. Marka labada wax inay tuso marka labada rood bas ay noqonayaan soo qofkii uu qanaco moogta oo fahmo. Markaas kan sanadka hore way warqadaada ku soo dhig wax ka dhigantay warqadaas waa lagu doortay marka hambaliyo markaas oo kale way insha Allah foomka labaad oo test form iyo processka labaad marka maraysa xog badan baa ku waran warqada isee case number halkaas ku qoran marka insha Allah iyadoo caadiyan waa tan insha Allah waxay rajaynaa dhamaantiin nasiib wacan insha Allah idan rabbi fuli waay mayso marka xog badan baa ku qoran halka foomka labaadna insha Allah ka soo hadli doona isagana insha Allah wuxuu ka hadlayaa foomka iyo processada labaad ee meelaha labaad ee tagtay kartid iyo xogta